haddaad dishid imika matalan ayatullahi cali alkhameini haddaad dishid waxaa la doortay ilaa 7 nin oo kale oo isaga bedelaya oo ka mid yahay inankiisu oo isaga ka adag Iiraan dawlad basiita maaha oo qof ka taliyo Iiraan waxa ka taliya institutionno iska soo horjeeda is ilaaliya wada socda waxa diraaso u baahan cilmi weeyaan maxaa kamid ah waxaa jira maktab la yiraahdo xafiiska murshidka sare ee Iiraan xukuma kaasi waxa yaala haddaad dishid imika matalan ayatullahi cali alkhameini haddaad dishid waxaa la doortay ilaa 7 nin oo kale oo isaga bedelaya oo ka mid yahay inankiisu oo isaga ka adag haddii uu geeriyoodo ama la dilo replacement-igi meeshuu joogaa uu jooga 7 nin baa la diyaariyay oo isdaba yaala succession waxaa ka mid ah inankiisa ka mid ah wadaadka oo marka diintana sidiisa u yaqaana kana adag adayga ka adag waxaa jooga kuwo isaga ka soo horjeeda laakiin ka visionary oo wadanka inay qabtaan laga yaabo marka 7 nin baa kala diyaariyay xafiiskaasi waa xafiiska Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan xakumayaan sidiisu u fadhiya isagu waana xafiiska qaraarka ugu dambeeya leh waxaa jira madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda la dhaxdo labadan nin waa laba nin oo bidix ah midig ma aha ma adko waana dadku isku halaynayo ninka la dhaxdo Trump waliba hadda iyagu soo hadaan iyaga sheekadooda waa suurtagal weeyaan waxaa jira majliska ilaalinta dastuurka oo ka shaqeeya dawladaba ilaaliya marka majliskaasina waa majlis adag waxa kaloo jira golaha shuurada oo baarlamaanka lamida waxaa jira majlis raado khubara'ul qiyaada khabiirada dawladda oo isaguna meel fadhiya waxaa jira ciidanka waxaa jira security amniga waxaa jira xarasu sawriga oo qolada ugu khatarsan intaas oo dhani waa in la heshiisiyo si aad u samaysid wadanka inaad qaban kartid intoodan awooday leeyihiin ciidamana way leeyihiin waa wada awoodo wada socota is ilaaliyana isku afkaarna ma aha laakiin waxay ka midaysan yihiin Iiraan awalan waxay ka midaysan yihiin ashiicatu awalan waxay ka midaysan yihiin fikratu Khomeini awalan thawra saddex shay laakiin waxa kale oo isku khilaafsan waa tahay marka haddaad murshidka dishid kan waa la mido kan kale waa la mido wax u dhaxeeya ma jiro marka adiga waa inaad fahamtid dawladdan inay ahayn dawlad caadi ma aha marka taas waa mid labaad keenaysa inay adag tahay in la rido